lafagurka khudbadaha kala duwan ee madaxda dunida islaamka iyo weliba kuwa carabta shirka degdega ee uga soconaya magaalada Dooxa ee caasimadda waddanka Qatar halkaasi uu ka daafuray shirkaasi boqor Tamiim bin Mohammed Al Thani madax kala duwan oo dunida carabta iyo weliba kan islaamka saameyn ku leh ayaa khudbado kala duwan ka jeediya waxaana kamid ah dadka ugu hadal adkaa oo khudbadahooda dul istaagi doono ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Sabha Sharif oo ku tilmaamay tallaabooyinka Israa'iil ee qaadayso in aan la eegi karin isla markaana ay damacsan yihiin gacan ku haynta iyo awoodda gobolka bariga dhexe kaliya inay iyaga noqdaan sida daraadeedna loo baahan yahay in si dhammaystiran loo midoobo Pakistan waxay noqotay dawladda ugu hadal adkeyd ee maanta khudbad weyn ka jeedisa kulankaasi madaxweynayaasha kale ee meesha ka hadlay iyo hogaamiyaasha waxaa kamid ah madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ku baaqay in loo midoobo cunaqabatayna kala duwan iyo cadaadis dheeraada oo la saari doono Israa'iil waxa uu yiri haddii aan si dhab ah loo midoobin isla markaana aan halkan aysan ka soo bixin go'aano xanuunjin kara nidaamka waxaa muuqanaya in dhibaatooyinka gobolka bariga dhexe ay sii xoogaysan doonaan madaxweynaha dalka Masar General Sisi ayaa ka mid noqday madaxda khudbadaha jeediya kuwada ugu xasaasisan waxa uu leeyahay dawladda Qaahira ma muuqato mana sii aqbali doonto gardarrada Israa'iil ee gobolka bariga dhexe ay ka wado halkan waa inay ka soo baxaan buu yiri go'aano dhammaystiran oo dhinac walba taabanaya oo ku saabsan Israa'iil haddii la rabo gobolka nabad in lagu wada joogo dhammaan diilimihii casaa ee lama gaaraanka ahaa iyo Israa'iil ka gudubtay taas oo muujinaysa in hadda aysan waxba harin Masar waxay ahayd tan kaliya ee luuqad dagaal ku hadashay marka laga reebo dalka Pakistan haddaba maxay yiraahdeen muxuu sheegay madaxweynaha dalka Masar General Sisi barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa khiyaaray boqorka martida loo yahay ee la garab istaagaya waddankiisa la weeraray Tamiim bin Mohammed Al Thani waxa uu leeyahay weerarka la inagu soo qaaday waxa uu ahaa mid ay qaadeen dal argagixiso ah oo runtii fulaynimo badan ay ka muuqanaysay waxa loo baahan yahay halkan inaan go'aan ku gaarno hase ahaatee madax kala duwan ayaa hadlayay waxyaabaha kale la yaabka lahaa waxaa kamid ah in madaxda qaar khudbadahooda si milgale warbaahinta adduunka indhaha u siinayeen halka qaar kamid ah madaxda kala duwan markay hadlayaanna falanqeeyaasha warbaahintu ay ka soo muuqanayeen maxay tahay ama muxuu yahay sababta tallaabo noocaas uu qaaday telefishin uu kamid yahay Al Jazeera waan dul istaagi doonaa akhyaarta nala socotay waxaan dul dhigi doonaa falanqeyntan taxliilka ay bixinayaan qaar kamid ah khubarada ka soo muuqanaya warbaahinta carabta aqoonyahanka jaamacadaha kala duwan dhiga ee eegaya hadalka madaxdan iyo sida ay u arkaan iyo guud ahaanba saadaasha laga fili karo kulankan inuu ka soo bixi doono xiisaha shirkan marka la fiiriyo dunida islaamka sida looga hadalhayo ma u muuqdaa khudbadaha madaxdu ay soo jeedinayaan aan ku horeeyo amiirka waddanka Qatar Tamiim bin Mohammed Al Thani oo shirka gudoominaya isla markaana madaxda kala duwan ee dunida islaamka iyo kan carabtu ay fadhiyaan shirkan oo loogu magac daray shirka degdega ah ee wadamada carabta iyo dunida islaamku ay ku yeelanayaan magaalada Dooxa oo lagu garab istaagayo dawladda Qatar weerarkii ay kala kulantay nidaamka Israa'iil boqorka waddanka Qatar Tamiim bin Mohammed Al Thani khudbadii uu jeediyay waxa uu ku sheegay furitaanka shir madaxeedka degdega ah ee carabta iyo islaamka ee ka socda magaalada Dooxa isagoo tilmaamay in dalkaasi lagu qaaday weerar foolxun qayaano ah oo fulaynimo ah sida uu hadalka u tilmaamay kaasoo lagu bartilmaamay sida uu yiri guri ay deganaayeen qoysaska madaxda kooxaha wax iska caabinta iyo wafdiga wada xaajoodka oo halkaasi ku sugnaa waxaanay u muuqanaysaa mid ka hor imaanaysa madax banaanida caalamiga ah iyo waliba dalka Qatar iyo ujeedooyinka dalkaasi uu ka leeyahay nabadeynta gobolka bariga dhexe Sheikh Tamiim waxa uu xusay in shacabka Qatar ay ka codsadeen ama ka kodsoomeen baa layiri weerarka isla markaana dunida oo dhan looga gelgashay si weyn xilli guuldarradu ay ka dhacday hogaanka ama gardarradu ay ku socotay baa layiri hogaanka kooxda martida ahayd iyo falanqeeyaasha hindisaha nabadeed ee Qatar Masar ay u gudbiyeen iyo waliba dawladda Mareykanka amiirku waxa uu dhaliilay in ay si ula kac loo beegsaday goob si wanaagsan loogu yaqaanay
in ay ku shirayeen wakiilada kooxda isagoo isweydiiya haddii Israa'iil ay doonayso in ay disho hoggaanka siyaasadda ee kooxdaasi maxay ugu fadhidaa wada xaajoodka oo maxay dadka beenta ugu sheegayaan may ku dhawaaqaan oo yiraahdaan annaga nabad ma rabno ee dagaal aan rabnaa sidaas ayuu doodiisa u dhigay waxa uu ku adkeeyay in Dooxa ay martigelinayso waftiga ka socda labada dhinac ay ishaya isla markaana ay dadaalkeeda dhaxdhaxaadinta ku guuleysatay sideynta maxaabiis dhinacyada kala duwan ee haysteen Tamiim bin Mohammed Al Thani ugu dambeyn waxa uu mahad celiyay madaxda kala duwan ee shirka fadhisa isagoo ugu baaqay in la soo saaro go'aano dhameystiran oo micno dheer abuuraya inta kadib si guud baan u dulmari doonaa dadka hadla waxa kamid ah oo khudbadooda xasaasiga ahaayeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu yiri Israa'iil waxay u muuqataa in ay doonayso awood ku haynta gobolka bariga dhexe inay si dhaba ula wareegto laakiin halkan waxa looga baahan yahay go'aano adag oo dhameystiran inaan ka soo saarno tallaabo kasta oo aan maanta qaadno waxay dabar u noqon doontaa ama ay u seeta dheereen doontaa buu yiri Israa'iil madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in Israa'iil si dhaba loo wajaho isagoo sheegay in loo baahan yahay in la kordhiyo dardargelinta cunaqabataynta lagu soo rogo si waafaqsan qawaaniinta caalamiga ah buu yiri Erdogan khudbada uu ka jeediyay shirka degdega ah ee Carabta iyo Islaamka ee ka socda Dooxa ayaa waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay si xoogeysatay kadib markii ay markasta ka baxda buu yiri qaab iyo waliba isla xisaabtan caalami ah hadda se waxa la gaaray xilligii arrimahaasi lagula xisaabtami lahaa oo cawaaqibkeeda heli lahaayeen waxa uu ku eedeeyay dawladda uu hogaamiyay Netanyahu in ay gobolka ka wada jahwareer iyo waliba xasilooni darri waxa uu sheegay in weerarka Israa'iil ay ku qaaday Dooxa uu sare u qaaday gardarrada iyo waliba faanfaanka cad buu yiri ay doonayaan inay ku dhaqanto Israa'iil oo ay meel walba rabto inay saameyn ugu yeelato madaxweynaha Turkiga waxa uu carabka ku adkeeyay in Ankara ay garab taagan tahay dalka Qatar duufaanta iyo waliba waqtiyadan xilligan lagu jirana ay jiha kaliya kala soo jeesanayso isla markaana ay diyaar u tahay inay qaado tallaabo kasta oo laga maarmaan ah in lagu joojiyo xadgudubyada joogtada ah ee nidaamka uu ku kacayo shirkan waxa lagu gorfeynayaa arrimaha Carabta waxana madaxda kala duwan ay muujinayaan sida ay dhiiranaan u muujinayaan oo ay doodahooda banaanka u keenayaan haddii aan fiiriyo madaxweynaha dalka Masar General Sisi waxa uu yiri Carabta iyo dunida Islaamka waxa la joogaa xilligii ay midoobi lahaayeen isla markaana mowqifkooda ay cadeyn lahaayeen maanta haddii kale Israa'iil waa ay ku sii socon doontaa xadgudubyada ayuu hadalkiisa ku yiri madaxweynaha Masar General Abdel Fattah al-Sisi ayaa sheegay in Israa'iil loo baahan yahay in laga qaado tallaabo isla markaana ay ka gudubtay dhammaan diilimihii casaa isagoo ku eedeeyay in ay ku howlan tahay inay gobolka ka dhigto meel ammaan darro ah iyo sharciba aanu ka jirin oo ay qaanuunkii duurjoogtu ay ka talinayaan Sisi oo khudbad ka jeediyay shir madaxeedka degdega ee Carabta iyo Islaamka ee ka socda magaalada Dooxa waxa uu ku nuuxnuuxsaday in dhaqanka Israa'iil ee xadgudubka ah uu sababi karo in uu khilaafkaasi ballaariyo isagoo sheegay in xoog iyo awood ciidan kaliya lagu gaari karo amni iyo xasilooni hasaatee Carabta intay qawaaniin caalami ah iyo waliba hadallo banaanyaal iska sheegayaan inaan Israa'iil waxba laga qaban karin buu yiri laakiin waa in la muujiyo in cudud iyo ciidan looga hortago wuxuu carabka ku adkeeyay amniga Israa'iil aanu ka iman karin buu yiri ku xadgudubka madax banaanida dalalka Carabta isla markaana uu ku eedeeyo Tel Aviv in ay raacayso xeerar dagaal oo joogto ah oo lagu fashilinayo buu yiri dadaalada nabadeed ee gobolka bariga dhexe madaxweynaha Masar ayaa markii Israa'iil weerarka ku qaaday Dooxa ku tilmaamay falgal darro oo la aqbali karin Masar waxay ka mid tahay dawladaha sida adag u dhaleecaynaya hadallada ee kala duwan iyo ficilada ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ka hadlayo marka la joogo arrimaha dagaalka iyo sida ay wax u socdaanba madaxda kala duwan eegaya ra'iisul wasaaraha wadanka Pakistan Mohammad Shahbaz Sharif ayaan eegaya warkii uu tilmaamay oo ahaa mid runtii kulul waxa uu yiri Israa'iil ujeedada ka dambaysa in weerarkan ay qaado waxay tahay buu yiri in ay doonayaan in gobolka bariga dhexe ay gacanta ku hayaan
dowlad dunida islaamka ka tirsanaa aanay wax macnaha halkan ka samayn. waxa uu yidhi waxaa hadda la joogaa bartii laga dhaqaaqi lahaa, inta ay goorigoor tahana waa in halkan runta la isugu sheegaa. sidaas ayay Bakistan ka leedahay kulanka. ra-iisul wasaaraha Bakistan Shehbaz Sharif ayaa maanta si kulul u cambaareeyay weerarka Israa'iil ay ku qaaday magaalada Dooxa, isaga oo ku tilmaamay falgal darro ah iyo weliba kicin halisa buu yidhi oo lagu fashilinayo dadaalada nabadeed ee gobolka bariga dhexe. khudbada uu ka jeediyey shir madaxeedka degdega ee carabta islaamka ee ka socda Dooxa ayuu Shehbaz ku baaqay ciidan wadajir ah oo carbeed oo islaami ah in la sameeyo si loo wajaho damaca ballaarinta Israa'iil loona ilaaliyo buu yidhi madax banaanida gobolka. waxa uu leeyahay Israa'iisha weyn waxa kaliya oo looga hortagi karo waxay tahay dhismaha ciidamo dunida carabta islaamku ay isku darsadaan, isla markaana ilaaliyo madax banaanidooda iyo qaanuunkooda dunida kalena haddii ay soo hojoomaan ka celiya. laakiin cidda kaliya oo ciidamadaasi loo samaynayo waa Israa'iil ayuu ku doodayaa. waxa uu sheegay in weerarka Israa'iil uu ahaa jabin cad oo ka dhana madax banaanida iyo dhulweynaha dalka Qatar buu yidhi, isla markaana Bakistan ay garab taagan tahay shacabka iyo hoggaanka dowladda qadariyiinta. ra-iisul wasaaraha Bakistan ayaa carabka ku adkeeyey in falalka Israa'iil aysan ahayn dhacdooyin gooni ah, balse ay yihiin qorshe ballaaran oo ay ku doonayaan gacan sarreynta gobolka bariga dhexe in ay ku hayaan gobolka oo dhan, xitaa xilliga dagaalka. kaalinta dhexdhexaadiyaasha nabadeed waa mid aan la taaban karin. Israa'iilna waxay si cad u muujinaysaa in ay daacad ka ahayn wadaxaajoodka iyo ilaalinta nolosha bini'aadamka ayuu hadalkiisa ku yidhi. Shehbaz Sharif waxa uu ku ammaanay Qatar dadaalada daacadnimada leh ee joogtada ah ee uu ku hogaaminaya amiirka waddankaasi, kaasi oo mar walba ka shaqaynaya buu yidhi xasiloonida guud ee doonaya dalkaasi in gobolka bariga dhexe uu ku islaaxo. dowladihii waaweynaa ee dunida islaamka inta badan waa hadleen, waxna ay tilmaamayaan in dowladda Qatar ay garab taagan yihiin. waxaa xoogaysanaya dareenka ku aadan dhismaha ciidamo wadamada islaamka ee dunida carabta ay yeeshaan oo lagu wajahayo Israa'iil. haddii tallaabadaasi shirka ay ka soo baxdo, ficilkeedana lagu dhaqaaqo, waxa uu muujinayaa gobolka bariga dhexe xaaladiisana ay aad u adag tahay. dowlado aan sidaasi warbaahinta aysan nuxur badan u siisin ayaa meesha ka hadlay. madaxweynaha Djibouti ayaa khudbad runtii aad u qiimo leh meesha ka jeediyay Ismaaciil Cumar Geelle. waxa uu yidhi weerarka carabta gaar ahaan dalka Qatar lagu qaaday waxa uu ka dhigan yahay wadamada islaamka oo dhan oo la weeraray, waxaana loo baahan yahay Israa'iil in si degdega looga hortago ficiladan ay muujinayso. madaxweynaha waddanka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mid ahaa dadka hadlay. inkasta oo khudbadiisu ay koobneed, haddana sheekh waxa uu tilmaamay in ay muhiim tahay in la garab istaago dalka Qatar, Soomaaliyana ay garab taagan tahay, lagana hortago cid kasta oo ku xadgudbaysa qaanuunka caalamiga ah. wadamada Indonesia iyo dalal kale oo muhiim ah ayaa khudbado kala duwan jeediyay, dhammaantoodna waxaa muuqanaya in ay si weyn uga soo horjeedaan Israa'iil. warbaahinta qaar ayaa marka ay madaxda hadlayaan qaarkoodna siinayay aragti dheeraada iyo weliba in ay si aada codkooda u dhiirigelinayaan, halka wadamada qaar markay hadlayaanna ay muuqanaysay in Jazeera iyo telefishinno kaleba ay kaamirooyinka ka duwayeen oo ay falanqeeyaal stuudiyaha soo fariisiyeen iyo dad ay ka soo casuumeen dunida si ay shirkan u falanqeeyaan codadkooda la dhegaysanayay. arrintan waxa ay bartilmaameed u tahay baa layidhi in dowladaha madaxdooda laga wareejiyey kaamirada aysan macno weyn ku lahayn kulanka, oo ay yihiin shirbuuxiyaal sida khubarada qaarba ay hadda ku tilmaamayaan. doodu waa culus tahay. waxaa la filayaa warar inay ka soo baxaan shirkan. Israa'iil qudheeda dhaqdhaqaaqyo ayay wadaa, indhaha ayaa lagu wada hayaa shirkan. adduunka oo dhan ayaa maanta daawanaya magaalada Dooxa. inana waa idinla socodsiin doonaa. si aad codkan iyo macluumaadkan iyo kuwo kale aad u heshaan, ha hilmaamin inaad YouTube-kan la socotaan oo subscribe tiraadaan. aad baad u mahadsantihiin.